وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين. وبعد إخواني وأحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكم وحن قهضنا الإصلاح بين المسلمين إن دتك الله شيسيو أو أما الله وقف هالنقدان أما institutions، يعني وحوي ورهرتش لها النقدان أما قبائل هالنقدان أما أمضات شعر هالنقدانه إن له شيسية وأساسياتك بلشدة إسلامك أي لاضح. إسلامك بو أوران دتك وملائك، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قفلوا بن آدمي وقف وخير الخطائين التوابون، لكن وحاوغو خير بدن كو قفة كو صون نقضاء أيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن سماحة دينتين يدبر سنانتين أيها وحالي نوشيغي قفك بن آدمكي إنو قفيه، وهذا من طبيعة البشر. إنو وح إلوبيو أيها اللي نوشيغي إنو سيحانيو وكسيحانيو مررك قاركود واجب كيسة انتبا حكم باكرة تبمية. umadihii hore qofku hadduu gafo meesha uu ka gafo ayaa laga jari jiray subxaanallah. laakiin ummadda rasuulku calayhi salaatu wassalaam shareecadeennu waa samxaa, waa shareecad waafaqsan qofka bini aadamka qaabka uu u nool yahay. waxaa loo ogolaaday in qofku uu gafi karo, laakiin shardi waxaa laga dhigay inuu soo noqdo ayaa nabigu calayhi salaatu wassalaam inoo sheegay. idan qur-aanka waxaa ku yaala sunnaha rasuulka calayhi salaatu wassalaam ku yaala iyadoo la toosinayo ambiyadii ilaahay jeclaa ee qur-aanku ku soo degay, xataa nebiga calayhi salaatu wassalaam. marar badan baa waxaynu tilmaannay rasuulku calayhi salaatu wassalaam waa ooyi jiray, waa farxi jiray, waa murugoon jiray, wuu kaftami jiray nebigu calayhi salaatu wassalaam. saacatun wa saaca macnaheedu waxa weeye kuma ay jirto qofka muslimkii inuu noqdo kaa'in malakiya oo aan lahayn dabeecadda basharka. shareecadeennu waa shareecad fudud oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka bini aadamka u fudaydiyey. إذن وحتى أنت يا رسول الله قال نعم. أذكر مياد أيدا صحابتي سكمذا كوي وشعلا كمذها أياد دنتي وهو سعد ابن معاذ. مركز النبي قو يمد سيدا أصل كصحيح وتلماميو رسولك صحابي قاسي لابتي سوق قبطي استغل نبر كيسي وقرحي وديق يدي عن وبرقنيو. dabeeto waxaa la yidhaahdaa dhiiggii iyo dheecaankii gadhkii rasuulkay buuxiyeen iyadoo nebigu uu ilmaynayo markuu saxaabigaasi dhimanayay. waa dadkiisii koobnaa ee uu jeclaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam. waxataa anta yaa rasuul allah, nebi allow aduguna miyaad oydaabay saxaabadu ku yidhaahdeen. alqalbu yaxsan waalcaynu tadrif walaa naquulu ilaa maa yardaa rabbuna. haayo qof aan jecelahay marka uu dhinto waan murugooda oo waan ooyaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam, laakiin kuma hadalno hadal aan shareecadda waafaqsanayn buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam. idan si kooban waxaan uga hadli doonaa golihii baarlamaanka oo ogeydeen inuu isqabtay welina ishaya. idan waxa weeye waxaynu halkan uga diraynaa inagoo ku eegayna murankaasi dhacay isha shareecadda ayaynu ku eegayn. idan iyo waxa inagay nagala gudboon dadka aqoonta leh, dadka dalkan danaynaya, dadka jecel in dalkani uu noqdo dal degan oo wanaagga lagu xukumo oo shareecadda raaca, ayaa waxaynu doonaynaa inaynu tilmaanno islaamka waxaa ku jira rukni kamida
bulshada islaamka gudihiisa oo ah in dadka la heshiisiyo oo lagu heshiisiyo wanaagu waxa uu yahay في سورة الأعراف إلهي مركو كورمي وحده وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين نبي الله موسى إلهي وحكوري إلهي وسيربان أباهانا هاي إلا دير مركي إلا ديري مركا نبي الله هارون با إلهي إلا ديري إذن مرء صفري أيوك قتغي تلكي وقال موسى لأخيه هارون اخلفني نبي الله موسى وحا أوكيري ولالك هارون نبي الله هارون إيغسي وكيل أهو في قومي تلكي أدو إيغسي وكيل أهو وأصلح وناكي وناكوه قامي ولا تتبع سبيل المفسدين كوا ددك كلاكحينيا كوا ددك اسكدريا كوا ددك خيامينيا كوا سيح الرائع انت aad wakiilka iga sii tahay dadka isku hay oo wanaag iskugu hay ninka yiraahdo dadkan isku hayraya aniga oo aqligayga isticmaalaya oo dhinac ka raraya hada laysa yani jaisan fi dawi shari'a al-islamiyya ma ha shay banaan shariicada gudaheeda الصادق المصدوق إسلامكو رسولكو وحوها كي رنشيغها إلا رميسانيي إننا طريقة مرة أيا لينقويري وأصلح ورددك وناتي واللهم صل على سيدنا محمد ونا كدق ولا تتبع سبيل المفسدين كوا حبينكي ددك أشرة كوحهان أشرة inta kale inay khiyaamiyayaan u shira hantida umada u shira talada umada u shira wa haulaahi humul mufsidun kuwa laga hadlaya kuwa weey islaamku ma uu yaqaano ma yusamma wara al-kawalis waxyaalaha la yiraahdo habeenkii baa la jara abul jahl ayaa markii 5 nin ay soo heshiiyeen oo lamida oo 11 nin ee Quraysh kamida u taliya ee ay ku soo heshiiyeen in la jaro warqadaasi nabiga kaleey salaatu wasalaam lagu cunaqabateeyay ayaa aroortii ayaa ay yimaadeen Kacbada marka ninkii ugu horeeyay ayaa yiri warqadaasi waa warqad baadil baa lagu qoray warqada waanu jaraynaa أبو الجهل أو ننديرن أو طلب بدن دجال بدن وحبحين بدن قريش ودن حوك كوه جامية أيادي ميل إنه أودنا ومله هيدنا دور قطع شرط تبتنين خلا أيادي أديكا بين شيء ورقدا ولا شرية مركز سكوري عندنا بين باتشيت نصدق هذا والله ميدا نمكي قريش أتليني أيادي بين باتشيكت لبضا نمباسحة أديكو صوت تاجم بانو إما كورقدا شري أبو الجهل مركز سوري هذا أمر قد قضي الليلة ماشي هبل أي اسكر راعين وأرهن هبين لسود ميبوري سبحان الله تبى توحوا كوري أنتي كلا إلا واشنن وكوبية وانكنن قريش أطلية كم إذا ورنمكاسي ناني ستيلنا ورقدها شراني إسكداي إذا waxaan uga jeedaa islaamku wuxuu ku dhisan yahay run waxa umada lagu maamulaa run waxa umada lagu maamulaa wax cad walaysa shay'an fihi shubahat ولذلك wuxuu uga digayaa nabiyullaahi Muusa alayhi salaam walaalkii oo nabiya wala tattabi' sabila al-mufsidin warkuwa iyagu wax khaldaya ee mufsidiinta inta aad talada sii hayso ee aan kugu soo gaarayo raacin buu yiri nabiyullaahi Muusa alayhi salaam في سورة هود آية 117 إلهي وحيري وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون إلهي مقالا مهلاقه بظلم أي بكفر قال لمكم مهلاقه
وأهلها مصلحون هذه دحدود أي إسكو وناجيان يسوع عدالة فلا بلا يضعوا فيرس حتى قال ذا إلهي قال لمكم هلاقي يبا إلهي لي هذه ما شاسي عدالة كترته ووحود أيساني وقيب صدانه آلي إسخيامين بإلهين قارب الله يا أبو السنة يا القرآن كقول مصدق مريكان يوروب يكوا مجرمين تلا شغلة يعني institutions transparency iyo accountability waxa ay sheegaan bay sameysteen halkay ku noolaayeen kuwaas slave trade-kii waa garanaysaa iyaguna way iscunayeen dadkana way cunayeen yaani qarnigii 19aad 1438 sanadood baa ilaahay leeyahay sunnaha ilaahay waxa kamida ummad inaan la rogin gaalnimo aan lagu rogin haday soo cadaalad falan haday dhexdooda iska wanaajiyaan ayaa ilaahay quraanka ku sheegay Nawaz Sharif حزب الرابطة الإسلامية في باكستان 45 مليون oo cod buu ku fadhiya subhanallah ninka 45 milyan oo cod ku fadhiya ayaa corruption-kii dartii gurigiisa lagu xiray imanka loo ogolaaday magaaladii uu dhashay inuu tago waa prime minister-kii waqtigiisii buu ku jira subhanallah hadana waxa la yiraahdaa adeer Soomaas baa lagu haysta isagoo inta soo cod haysta reer baa idaba taagan iyo cod baan haysta ay waxaas adeer kama shaqeeyaan meelaha sharciga iyo nidaamku uu jiro laakiin waxay ka shaqeeyaan wadamada dumaya ee burburaya ee la fooftaan habaabiyay ay waxaas ka shaqeeyaan ilaahay wuxuu ku yiri fi surati al-hujurat إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون مؤمنين تؤكل يا ولالاء فأصلحوا وناجيا بين أخويكم ولا الذين مرك أي إسقبتان لحدود وناجيا وارحقوا لضم ضم الله ومذهب كلي حق لي فأصلحوا وناجيا بين أخويكم ولا الذين مرك أي إسقبتان إصلاحية بإلهي لي إصلاح ماها خذنا قربي لذهي خيوهنا قربي لي أذر وحوي أذر وات قلدنتي كدا وهذا هو النظام الإسلامي نظام كإسلامك وحوي أنا حوق بدن أريق عيا لعق بدن أريق عيا تراب بدن أريق عيا وقت قال أريق عيا سداسة هذا كمش قيس إسلامك الأغلبية هي الحق في الإسلام majority إسلامك وحو يقان وناقو هلك أوتشرو حق أوتشرو فأصلحوا بين أخويكم ولا الذين مركا أي إسقبتان لحظوظ إصلاح كدليه واتقوا الله لعلكم ترحمون والإلهي كياب مركا آدتك دحدحادين إيسان لعلكم ترحمون وحا مدنتين حتى صدا سميسان إلا يدين حريسته أيولي إلهي سبحانه وتعالى وفعلا نظامك إسلامك ومحويه هبل با العقل هبل با علم الله هبل با توسن هبل با تقيا حتى كإنه تقصن هذه لقب صده وحاو هرتجيا كأوقف وقت قاس إسلامك مذب ومصري ضدكم مركع إسقاب صدا حتى مقع مصري قد كان في من كان قبلكم ملهمون أو محدثون فإن يكن في أمتي فعمر ومديه إذن كوريي وحديث بخاري مسلم أي وريين قاربا لو شيء جري وحا سو صعده أما وحا دعي دون إلهي وتلمامي جري فإن يكن في أمتي فعمر هذه أمدي إذا أي تقف وحلوصي شيئا عمر بن الخطاب باكرة أي النبي عليه الصلاة والسلام وفعلا لنبضن بأنه كورهني وحياله وكور رمي إلهي أدبي وقت هذا ما حينه صحابي قاسي أو أمير المؤمنين كيا أو مسلمين تبعد أبو بكر صحابي قوقو فضل قبضنا إلا كوقو دنبي قيامها أكتيس دلندونا
وسحابي قلبات المسلمين تؤردن وقفضل بدن سيدا أي رميسين أهل السنة والجماعة سحابي أهل القرآن وحفاظي صحابة كمدة يسقبتين مركزا waxay noqotay inay kala baxaan wixii maxkamadda tag isoo ashkatay buu nin taabiciyo dargi waaweynaa meesha fadhiya waar tagi maayay buu meesha adigu aad magacawdo wada xageenu ku wada xageenu tagna masaajidkeena geebuulo Sayyid bin Saabit saxaabiga ansaariga ayay ugu dhantahay isaga ay ugu dhantay buu Umar bin Khattab radiyallahu anhu xalacday meeshii bay tageen saxaabigii doonayay inuu kala saaro ayaa yiri ha huna ya amiir almu'minin amiirkii mu'miniinta oo halkan fadhiiso wuxuu mar dambe magacaahiigu yeedhi inta aan garbaxayo title aan sitaa ma jirto la amiir almu'minin la khalifatu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam magacuun labadayada noogu wadayeen ilaa intii la kala saarayay isaguna wuxuu ahaa Umar bin Khattab radiyallahu anhu kana wuxuu ahaa sayyidul qur'aan Ubay bin Ka'ab halkii baa lagu kala saaray idan waxaan uga jeedaa islaamku nidaamku soo qadimay baan ku sheegay barakallahu fiikum shariicada maanta aynu ka cararayno cidiba ismay qabsateen laano nin walba wuxuu og yahay waxa meesha siiyaan fa aslihu bayna akhawaykum war walaaladiin marka ay isqabtaan dhexdooda sulh ka sameeya wattaqullah oo marka aa kala saaraysaan reer iyo magac iyo suldad midnaha eegina wattaqullah ilaahay ka yaaba la'allakum turhamun وفي سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إلهي وحر الشر أولا خير ما الله حدان سدح لجهلين إن ماشى وناك لا يسكو فريو إن دتك لغو إصلاحنا أنت عين وايد وجهنا وإنتاس شركة سوحو خير ليه هي هدي دتك لغو كلا صاريو أو كي قلبا للريبيو كيس أحسن هالكيس اللي تشوتينيو أياولي أرنت أمانة برلمان ككد عضي أقل من ثواني البرقسية إن كير با هذه طريقة الله مرو لقو كلبحية سبحان الله لكن مركا أرنتو أي تهي تبنن أو إن الله أمرودي قبصدي لقا قدقو كي دك تهيبا لويدي وبالمروديك كور وين الله يهي مروديك ومصف بوي محيم تاو وجهنا تسوى حسب مركز كي لوقت قبصدين ده الله أبى لقول وارب المروديك كور مروديك وشريد بوي كي مروديك دكدي ستابتي بالي مروديك كور مروديك وادول الله يوب الله ربوري وادكدي بوهيست مركاك marka aynu diidno waxa inaga dhaxeeya in lagu kala saaro dadka ee qofku uu doono sidoo aaminsan yahay sida kooxdiisu ay aaminsan tahay waa ninka indhaha la ee maroodiga dhagta haysta ee wax kasta hadii loo sheego oo la yiraahdo maroodigu war ma aha qayb kamid ah haysata ee maroodigu dhag kaliya ma aha warigi wuxuu la soo taagnaanaya maroodigu waa masaf Ali bin Abi Talib waa amirkii muuminiinta وإنت سو حديث أو صحيح فضلي سكسو أرورتي ونبيجو ويري نينك على شعلادا أنيجو شعلادي نينك نعبادانا أنيجو وإن عيبود النبي عليه الصلاة والسلام علي ابن أبي طالب وكان من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاريخ دي سكور رمي كرين أيامركو أمير كهابا وحي سقبسدني يهودية dircu laha oo ku dagaalami jiray barigii hore silsilada isku xiran ba qofku dhakada ka xiran jiray markuu dagaalka xidho diric baa la oran jiray oo aad u wanaagsanaba kalluumani yahuudiya helay isagoo dagaal ku jira dabataninkii buu ku arko wuxuu war diracani waa diracaygi de soo cadeysay وعلي بن أبي طالب ومركو تلده هي أمير المؤمنين كاها وطبقي جلد اللوغو بشاريي أهل شورها انتو كتشري وصحابيك لوغو دنبيسين شري طلبة ويمركا وغو دنبيسة كلمة وكسو شروا آيات أما وحديث أما واستنباط لبدو ذا كسو بحي
ayaa uu dul saari jiray talada marka la iskugu yimaado idan looguma horreysiin jirin shanta kale markay hadlaan famaa taqulu ya abal hasan wa kana hakiman wa aliman dadka hadalka heli ogna waa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Ali oo aynka ahaba ninkii markay isqabsadeen ayaa wuxuu yidhi soo ashkataada Shurayh al-Qadi nin aan ahayn saxaabi oo taabici oo Ali uu magacaabay baa markaa haysta maxkamadii markii ay isla tageen ayuu yidhi yaa amiir al-mu'miniin waa kugu kalsoonahay aqoontaada adaa meeshan igu magacaabay marag maxaad haysataa ninkan isagu wixiisi buu haystaa albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankar haddaad qofka wax ku qabsatay isagu gacanta ku haya adiga waxaa lagugu leeyahay inaad caddayso ilaa ninkan isagii baaba haystee dabeetee wuxuu yidhi xasan iyo xuseen baan hayaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ka warramay inay yihiin sayida shabaabi ahli ljanna aniga aqoontayda kooban inkastood iga cilmi badan tahay halkan waxaan ku maamulaa inanku inaanu aabihii marag u galan yaa amiir almu'miniin ee cid kala keen ninkii yahuudigana halkaasuu taagay cali bin abi aalib baa la diiday in xasan iyo xuseen oo inta xadiis ku soo aroortay bukhaari iyo muslim aynaan sirdin karin inay marag u galaan sababtu waa maxay waa labadaadii inan cali bin abi aalib hadduu 5 su'aalood weydiiyo Shurayh al-Qadi way adkaan lahayd inuu ka jawaabo aqoonta Ilaahay siiyay Cali bin Abi Talib oo insha Allah ta'ala waqti uma hayne masaa'ilka la isku qabsaday runtii ay saxaabadu wada fadhiyeen Cali al-Barqsi uu kaga jawaabay la adad wala hasr Cali isagoo ku eeg cadaaladii uu umada ku hogaaminayay wuxuu yiri sidaasan ku qaatay inta aan keenayo marag kale oo aan ahayn xasan iyo xuseen intaan u dhaqaaqin baa ninkii yahuudiga wuxuu yiri ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasuulullah waxaan ugu jeedaa fa aslihu bayna akhawaykum ilaahi marka uu leeyahay macnaheedu waxa weeye war xaq ku kala saara dadka islaamku wuxuu keenay taasi aad arkayso waxa maanta dunida ka jira ninka maanta Bill Gates la yiraahdo company-ga Microsoft kale asxaabul milyaaraat maanta intaas oo bilyan haysta hadda isqabataan maxaad isleedahay maanta Mareykanka gudihiisa waliba ka maanta ila sharci iyo constitution iyo waxba shaqeeyay lawyer-ka aad kula doodaysaa saacadii wax laga yaabaa inuu qaato $100,000 ninka marka doonaysa calal aqal in lagu soo fariisiyo inaguna waxaanu ka hadlaynaa Ali ibn Abi Talib nidaamkii islaamku soo qadimay oo dunida oo dhan markaasi gacanta ku hay ayaa nin yahuudi oo muslim ahayn ayaa Ali la leeyahay marakeen ninkii halkiibu ku ashaatay aad buu ugu farxay Ali ibn Abi Talib wuxuu yiri faraskaad garanaysa ee hebel aan ku jabiyay isagana soo doono buu waan ku siinayaa kolaadii aad noqotay qof muslima almuhim laakiin maanta dunida waxa ka jira waa inaga laftigeenu teeni aynu soo taaganahay xadiiska runtii Abu Daawud uu wariyay muhaqqiq jaamic al-usul uu yiri waa saxiix nabigu kaleey salaatu wassalaam wuxuu yiri ala ukhbirukum bi afdal min darajati as-siyam was-salati was-sadaqati qalu bala ya rasul Allah qala salahu dhati al-bayn فإن بس فساد ذات البين هي الحادقة حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وحيدي وارميدين كورما أرين كفضل بدن صلاة يصونك يسكذا قالوا بلى نبي الله نوشك وادتك أول له شيء سيبور رسولك عليه الصلاة والسلام لقى ما هذا لي صلاة واجبك لقى ما هذا لي صونك واجبك لقى ما هذا لي سكذا واجبك واصل لياش هذه لما قف هالك يسكت دلان وأنا تصنعها إسكت تكتود لبدأ هالشيء إذا كفضل بدن بوري النبي عليه الصلاة والسلام حدث صدقة بدن دون سينات بحصة إن الله مسلمين هالشيء أي كفضل بدن صدقة تصنعها إن أضمان تصونت أتشبيسه لبا مسلمين أو إسحاق إن هالشيء أي كفضل بدن بوري النبي عليه الصلاة والسلام حديث كثير رمتي صحيحة
runtii culimadu ay tilmaameen sanadkiisu inuu saxiix yahay idan waxaanu leenahay baarlamaanka ha la heshiisiyo oo ha lagu heshiisiyo adeer xaqu wuxuu yahay iyadoo aan dhinacna yani garabka la saaray waa in laga hormariyo maslaxadda ummadda waxa weeye baarlamaanka 77 meesha iskugu yimid waayo dadkii doortay in la badbaadiyo way midna waan idin sheegayaa cadaaladda halkaa laga sameeyaa waxay ku xiran tahay doorashada dambe ee adag ee ummaddu ay galayso ayay proportional la tahay cadaaladdeeda idan waxaan kula talinaynaa institutionska ay khusayso arrintaasi ee taladeeda gacanta ku haya inay ka cadaalad falaan oo cadaalad falkaasi ay keento in runtii ay ku badbaadiyaan ummadan inaanay isdilin inaanay iskhilaafin mararka qaarkoodna marka aynu ka hadlayno cadaaladda waa taasi waxaa shaqayn weyday amiirul mu'miniinkii mu'miniinta hogaaminaya ee daacadiisu ay waajibka ahayd ayaa markii cadaaladda ay noqotay ay shaqayn weyday saxaabinimadiisii baa shaqayn weyday inuu ahlul janno yahay baa shaqayn weyday markii xaq lagu yeeshay subxaan allah rasuulka oo simaya saxaabada dagaalkii Badr istaw buu nabigu leeyahay safkii buu simaya marka saxaabi Qusay la yiraahdo ayaa calooshiisa soo yara taagneyd baa atharku odhanaya rasuulku wuxuu yiri dib u noqo safka uu la simayay laakiin intiisana soo taagan saxaabigii baa markuu rasuulku dhameeyay buu nabiga la hadlay wuxuu yiri rasuulullah sidii ilaahay abuuray baan u taagnaa laakiin safkaygu sax buu ahaa laakiin waad dhibtay markii aad riixday buu yiri nabiga kaleey salaatu wassalaam hadda waa dagaal baa lagu jira oo dagaaladii ugu adkaa waqtigaas saxaabadu waa 314 15 16 halkana kun nin baa soo taagan oo dagaalkina waa bilaabmaya rasuulku wuxuu maxaad raali ku tahay wuxuu yaa rasuulullah inaan ku riixo intii aad riixday rasuulku uu diyaar garoobay meesha adiga riixday yaa rasuulullah way banaaneed oo mara may saarneen maradii buu nabiga kaleey salaatu wassalaam uga qaaday halkii buu ka dhunkaday saxaabigii nabiga kaleey salaatu wassalaam isagoo intaas u jeed laakiin rasuulkii muxuu ogolaaday in laga goosto intii yarayd ayuu nabiga kaleey salaatu wassalaam ogolaaday waliba muxuu ogolaaday rasuulku iyadoo xaalad dagaal lagu jiro inuu baneeyo meeshii banaaneed ee saxaabiga uu ka riixay nabiga kaleey salaatu wassalaam idan ummad waxaa dhaqda cadaalad waxaa maanta wadamada muslimiinta ka dhacaya waa cadaalad darro kuwii gaalada ahaa ee ilaahay nacay ee doofaarka cunayay ee yani diin halkaa iska dhigay ayaa 200% wixii ay ku heshiiyeen ilaalinaya muslimiintiina dulmigii cadaalad darradii boobkii subxaanallah waxaasoo dhanina waa waxa ummadaha jabiyay marka barakallahu fiikum talada iyadu maxay tahay cadaalad ha lagu kala saaro baarlamaanka war cadaaladda isag taaga war waa masiirkeeni waxa weeye khilaafka siyaasiga ma aha laba qof oo dhul isku haya waa masiirkii ummadda la isku haya qarba u haysta in kubad la ciyaarayo nimankan meesha ku murmaya masiirkeeni ummadnimadeeni institutionskii aynu abuurnay dawladnimadeeni baa la isku haysta wixii aynu ku soo tacabnay wixii intaasoo inaan ku dhinteen wixii intaasoo magaalo loo dumiyey way waxa la isku haysta haddii khilaafkaasi uu sii fido waa garanaysaan halku tagayo idan waa inaad danaysaan dadku waa inay daneeyaan waa inay qofka qaldan ama 100 ha noqdaan ama 70 ha noqdaan ama 40 ha noqdaan joog waa in la yidhaahdo kuwa kala saaraya waxaanu faraynaa sida dee nusuusta aynu ku tilmaamayno ciday doontaa haato waxa war dadka cadaalad ku kala saar waqtiga ha dheeraynina subhanallah alqadaa'u qad'u an-nisaa'i walau kana hukma dardoosh maxaa bulshadeena baabiyay laba inanoo walaala ah isqabanaya hadda waa laba inanoo walaala ah kuwii noolaa way joogaan markuu aabahood noolaa way joogaan siday wax u dhaceen way joogaan nin intuu halkaa isa soo taagay inaad waryaawad qaldantay joog xoolaha waa wada lahaydeen adiguna daraf baad ka tahay waxaagaa lagu siinayaa u kaadi subxaanallahi ilmis
intaynu ognahay ma tirin karayno inta dhaxal la isku haysto bal waxa la leeyahay jaarkii dadkii meesha ku deganaa war adigu ma joogin meesha iskaga tag subhanallah alqadaa'u qad'u an-nisaa taswata keenaysa khilaafku inuu fido oo umada uu ku fido garsoorku waxa weeye dood la soo afjaro xukunkii qarqooshna ah arrintaasi haddii laga cadaalad falo saacad ma qaadanayso marka runtii gudoomiyaha maxkamadda sare waa dadka dhifta ah ee ummadani leedahay hadduu wanaag jiro xasaba cilmi ana isaga maanta gacanta ku haya waxaan leenahay ha dheeraynin wixii doona ha soo baxo si ummaddu u kala shaqo tagto si shaqooyinku ay u socdaan isagana waxaanu faraynaa in si cadaalad leh oo xikmad iyo caqli uu ku jiro oo waxa inagu xeeran uu eegayo duruufta iyo mulaabasaadka uu eegayo inagoo wanaag badan ku og inuu degdeg go'aan u soo saaro oo iyaguna ay hawshooda qabsadaan way hawlo badan baa ummadan u yaala innagana taladeena waxa ay tahay war marka ay isku qabsadaan waxa inaga dhaxeeya ha kala raacin waxa la isku haystaa maaha balood waxa la isku haystaa maaha dukaan waxa la isku haystaa maaha cimaarad nin leeyahay waxa la isku haystaa waxa weeye waxaynu wada lahayn وتلذي أمدوي إنها أمانة وليست طعمة تلذو وأمانه عدم الله كوحم الله يعني خير من الله دقم من الله يعني قبل من الله وحومتك الحين تلذو أوردن وعين كاسوي لكن المهم وحنقول شيء ذا الرنتاسي وحنؤدياد إن تتك أي خصيصه وحنقعد سنين أين الرنتاسي هرين وصلنا بارك الله فيكم dadka muslimiinta ah ee aynu garanayno ehelkeena qaarna ay xanuunsanayaan qaarna dib kale ay haysato ilaahay waxaanu uga baryaynaa in arrinkooda uu fudaydiyo kuwii caafimaadka doonaya caafimaad ilaahay siiyo kuwii muraadkooda oo khayr la ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo dhaweeyo inta masaajidka joogtay iyo inta kale intii xanuunsanaysana iyo intii dhibaato haysatana arrimooda ilaahay ha fududeeyo sallallahu alayhi